iyadoo muddadan dambe aynu ku guda jirnay gudashada bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa maanta guud ahaan dunida islaamka si weyn looga ciiday bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Tani Woodward ayaa saaka u dareeray musalayaasha loogu talagalay tukashada salaada ciida iyo waliba masaajidada kuwaasi oo ku tukanayay labada ragcadood ee salaada ciidul fidriga salaada kadib ayaa bulshada reer Woodward oo muktifiga Soomaaliya iyo Soomaaliya kala dhex qaaday ayaa bulshadu waxay ahaayeen kuwa isugu hambalyeynaya salaada ciida maanta waa maalin weyn waa maalintii ciidul fidriga waxaan kaga faa'iideysanayaa maanta dhammaan dadka muslimiinta meel ay joogaan baa waxaan leeyahay islaamka ciid mubaarak baan leeyahay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto hambalyo iyo salaam baan u dirayaa waxa aan maanta fursadan qaaliga aan kaga faa'iideysanayaa oo aan ku salaamayaa bulshooyinka reer Woodward iyo bulshooyinka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaan salaamayaa waxaan si gaar ah u sii salaamayaa hooyaday macaan waxaan salaamayaa bulshooyinka ku ciiday Soomaaliya dadka muslimiinta aan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat waxaan u rajaynayaa ciidisa in ay ku ciidaan barwaaqo iyo bashbash ilaahay nabadgelyo ku gaarsiiyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi waxaan joognaa degmada Woodward magacayguna waa Yaasiin Bilo Cali dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay qabal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay haydinka aqbalo amaashii aad soo qabateen ilaahay dhamaanteen haynaga aqbalo waxaan ka salaamayaa dhammaan inta magacayga muuqayga taala taqaana أنا وعفران عيسى محمود على عيد مبارك كل عام وأنتم بخير ملك مد الإسلام كي يشوفون وعن كل واحد قارب سلامة يا عيد الله عيد كرنا مقعد موقع تقانا على عيد مبارك لا عيد هذا نبض غب يبرواق يبش هاي نقول قارسيو وعن كل واحد سلامة يا شخص يقارا وأنا هذا قيمة وبالله التوفيق برواق يبش نبعي نبض قريو waxaan hambalyo u direynaa dhammaan muslimiintu meel ay joogaanba inta meel ay joogtaba waxaan leenahay farxad ku ciida nabad ku ciida ayaan leenahay halkani waa degmada Woodward waxaan sidoo kale u direynaa wax la yiraahdo farxad iyo hambalyo u direynaa TV-ga Somsat oo runtii marab aan ka daalay bulshada inuu arrimahooda dhex qaadayo ka warhayo Bismillahir Rahmanir Rahim I'm glad to stand in front of you all of them today we celebrate the Eid Mubarak Woodward Togler Somalia we're happy to celebrate Eid Mubarak we are taking more pictures in their village I'm so happy we celebrate Eid Mubarak كل عام وأنتم بخير thank you سعود عبد الرحمن عيسى أهني لجميع أحباب المسلمين في عيد الفطر المبارك وأقول لكم عيد مبارك وأنتم بخير وأسلم على الهواء مباشرة على توأمتي الغالية أسماء عبد الرحمن عيسى في مقدشو أقول لها عيد مبارك وأنت بخير والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك waxaanu hambaleynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogan khaasatan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogan waxaan leeyahay taqabbalan lana minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay ciideeda nabad qabiyo bashbash barwaaqo iyo dawlad suuban ay nagu gaarsiiyo waxaan joognaa degmada Woodward oo ka tirsan gobolka Cayn waxaan idin leenahay taqabbalan lana minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay amaashina soo qabanay naga aqbalo kuwii ilaahay cadaabka ka xoreeyay naga dhigo sanadkiisana ilaahay bashbash iyo barwaaqo ay nagu gaarsiiyo kullu caam wa antum bikhair waxaan si gaar ah u salaamayaa carruurta abtiga waayo joogta Sweden-ka iyo walaashay Khadra Ismaaciil Cali familkayga oo dhan inta magacayga muuqayga garanaysa waxaan halkan munaasabada ciid awgeed hambaliyada ciid kula wadaagaya dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan maanta farxad weyn ah inaan ku ciiday magaalada Woodward oo aan ku dhashay in badan aan ka maqnaa ma sha Allah waxaan si gaar ah u salaamayaa halkan saaxiibkay aad ugu qaaliya oo ka suufi galo islaamka meel kasta ay joogto waxaan leenahay Allah ciideeda bashbash iyo barwaaqo ay nagu gaarsiiyo meel kasta oo aad guud ahaan dal iyo dibadba aad joogtaan waxaan si gaar ah halkan hambaliyada ula wadaagaya labadayda waalid Abu Maxamed Ciise Maxamuud iyo hooyo Faadimo Xuseen Cali oo aan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ciideeda bashbash iyo barwaaqo iyo nabad iyo baraare waxaan balyeynaya dhammaan shacabweynaha muslimiinta waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaya shacabweynaha ka dhashay ee Soomaaliyeed
waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ciideeda hanuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo islaamka meel kasta ay joogaan oo ana magacaygu yahay Cabdixamiid Axmed Maxamed gaar ahaan jooga degmada Wuruud waxaan aad u salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ku nool yihiin gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed leenahay muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan ciid mubaarak ma leenahay ciid wanaagsan waxaan leeyahay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan inta magacaygu muuqataana ugu bishaareynaa dadweynaha islaamka oo dhan ciid mubaarak Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Woodwood